أدعو شعوب الأمة العربية والإسلامية جمعاء إلى الخروج الآن تنديدا بهذه المجزرة. wargowr dhow uu baahiyey telefishinka qaranka Iran oo ay soo xigteen wakaaladaha wararka ee AB iyo Reuters ayaa sheegaya in hogaamiyaha ururka Hamas ee Falastiiniyiintu Ismaaciil Haniya lagu dilay Tehran aroornimadii hore Arbacada maanta. sidoo kale Hamas ayaa iyadana dhankeeda xaqiijisay in Ismaaciil Haniya lagu qaarijiyay caasimadda Iran. Hamas ayaa sidoo kale ka tacsiyeysay dilka hogaamiyahooda iyaga oo bayaankooda ku sheegay in Haniya lagu dilay weerar ay ku sheegeen in sahnuuniyada ay ku qaaday guri uu ka deganaa Tehran. Haniya ayaa talaadadii shalay ka qayb galay munaasabadii dhaarinta madaxweynaha cusub ee Iran. Ismaaciil Haniya ayaa markii ugu dambeysay lagu arkay goob fagaara ah oo uu ka dhacayay caleemasaarka madaxweynaha Iran talaadadii shalay. waxa uu la kulmay madaxweynaha cusub iyo sidoo kale hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. ma jirto cid sheegtay ilaa iyo hadda mas'uuliyadda dilka Ismaaciil Haniya. hase yeeshee horey ayay Israa'iil wacad ugu martay inay dili doonto madaxda ururka Hamas. Ismaaciil Haniya oo ah hogaamiyaha siyaasadda ee ururka Hamas ayaa ka tagay marinka Gaza sanadii 2019. wixii markaasi ka dambeeyay wuxuu magangeliyo ku deganaa wadanka Qatar. madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas ayaa ku tilmaamay dilka Ismaaciil Haniya fal fuliynimo ah oo halis ah. waxa uu sidoo kale ugu baaqay Falastiiniyiinta inay midoobaan oo ay istajiyaan una adkaystaan wajiyada gumeysiga Israa'iil. sidoo kale sida lagu sheegay bayaan ay baahisay wakaaladda wararka ee Wafa, maamulka Falastiiniyiinta ee ugu hogaaminayo Mahmoud Abbas ayaa maamula daanta galbeed oo ah kooban halka inta badan ay Israa'iil gacanta ku hayso. ciidamada difaaca Israa'iil sidoo kale ciidamada difaaca Israa'iil ayaa u sheegay dhowr warbaahin oo ay ku jiraan CNN iyo wakaaladda wararka ee AFP in aysan ka jawaabi doonin wararka warbaahinta shisheeye ee ku saabsan dhimashada hogaamiyihii Hamas Ismaaciil Haniya oo lagu dilay magaalada Tehran ee dalka Iran.